Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal qodobada wararka aanu idiin hayno waxaa ka mid ah muxuu yahay heshiiska ay Soomaaliya ku saxiixday Addis Ababa iyadoo oo qorshaha ciidamada Soomaaliya ay kula wareegayaan amniga guud ee dalka lagu lafagurayo shirka golaha amniga ee Midowga Afrika. sanad kadib madaxweynaha Hirshabeelle oo maanta awood ciidan lagu geeyay magaalada Beledweyne iyadoo oo madaafiic lagu garaacay garoonka Ugaas Khaliif ee Beledweyne. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galaya golaha nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika ee ka socda magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya ayaa khudbadiisa diiradda ku saaray la dagaalanka Al-Shabaab iyo qorshaha ciidamada Soomaaliya ay kula wareegayaan amniga guud ee dalka. argagixisada Al-Shabaab waxa ay khatar ku tahay dhammaan nolosha dadka qaaradda Afrika. qorshayaasha golaha nabadda iyo ammaanku waa in ay noqdaan kuwo u midaysan dhammaan dadaalada iyo xuduudda aan kaga hortagayno khatarta inagaga iman karta argagixisada Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xiriirka la leh, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeedinayay golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika. madaxweyne Farmaajo oo ka hadlayay hanaanka ay ciidamada qaranka Soomaaliya ula wareegayaan amniga dalka ayaa waxa uu khudbadiisa ku sheegay Soomaaliya waxa ay sanadihii la soo dhaafay ku tallaabsatay horumar ballaaran oo dhanka amniga ah iyo dib u dhiska ciidamada iyo weeqidda awoodaha argagixisada Al-Shabaab, waxaana taasi keentay in Soomaaliya ay hadda gaadhay xilligii ay si buuxda ula wareegi lahayd mas'uuliyadda amniga guud ee qaranka Soomaaliya. dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Cabdicasiis Muuse Cali ayaa heshiis is-afgarad la saxiixday dhiggiisa dalka Rwanda. is-afgaradka ay kala saxiixdeen labada wasiir arrimaha dibadeed ee Soomaaliya iyo Rwanda ayaa ku saabsanaa horumarinta iskaashiga labada dowladood ee xoojinta xiriir laba geesood ah ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, sayniska, farsamada iyo iskaashiga dhaqanka. sida ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, heshiiskan ayaa dhinac socda shirweynaha Midowga Afrika ee shalay ka furmay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. saxiixa heshiiskan is-afgaradka ah ee cusub ayaa saldhig u noqon doona xiriir qoto dheer oo dhexmara Soomaaliya iyo Rwanda, kaasi oo ku qotoma wax wada qabsiga danaha labada shacab iyo labada dowladood ee saaxiibka ah, ayaa lagu yidhi qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Rwanda ayaa ka mid ah dalalka ugu muhiimsan Afrika ee lagu dayan karo, kaasi oo lagaga dayan karo dib u dhiska dal burburay oo ay dagaalo sokeeye saameeyeen, balse markii dambe ka soo kabtay maadaama dalkaasi uu hadda si buuxda uga soo kabtay qaranjab xoog leh oo ku dhacay kadib markii ay islaayeen labada qowmiyadood ee wada degay Rwanda, kuwaasi oo dalkaasi ku wada noolaa muddo dheer. madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa caga dhigtay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne. diyaarad uu saarnaa madaxweyne Cali Guudlaawe oo muddo sanad ah loo diidanaa inuu tago magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta si rasmi ah u gaadhay magaaladaasi. wafdiga madaxweyne Hirshabeelle waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madax ka tirsan maamulkiisa Hirshabeelle iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada federaalka ee Soomaaliya. ka hor imaatinka madaxweyne Guudlaawe ee Beledweyne, ammaanka ayaa aad loo adkeeyay iyadoo oo ay ciidamada dowladda oo aad u hubaysan ay xalay isku fidiyeen wadooyinka muhiimka ah ee gudaha magaalada Beledweyne, kuwaasi oo xidhay dhammaan isku socodka gaadiidka iyo sidoo oo kale goobaha waxbarashada iyo caafimaadka. ugu dambeyn, madaxweyne Guudlaawe oo muddo dhowr jeer ah ku fashilmay safar xoog ah oo uu ku tagi lahaa Beledweyne ayaa maanta waxa u suurta gashay inuu si xoog ah ku tago magaaladaasi. haddaba tegidda madaxweyne Guudlaawe ee Beledweyne ayaa sababtay in madaafiic lagu weeraro garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif. ciidamada la magac baxay kooxda kacdoonka Hiiraan ayaa madaafiic xoogan ku garaacay garoonka diyaaradaha ee Beledweyne iyagoo oo sheegay in aanay aqoonsanayn, kuna tilmaamay duulaan lagu soo qaaday gobolkooda. kacdoonka ayaa sheegay in la khiyaameeyay Generaal Xuud oo ku sugan magaalada Muqdisho. madaafiicda oo qaarkood ay ku hoobteen garoonka iyo nawaaxigiisa
ayaa waxaa xigtay hoobiyeyaal kale oo ay ku jawaabeen ciidamada Djibouti ee ku sugan garoonkaasi. sidoo kale waxa ay israsaasayn koobani ka dhacday magaalada gudaheega, taasi oo u dhaxaysay ciidamada dawladda iyo kuwa ka soo horjeeda safarka Cali Guudlaawe. ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalkan iyo weerarka madaafiicda ah ee lala beegsaday garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif, waxaana weli xaaladdu ay tahay mid aad u kacsan. ciidamada dawladda ayaa gacanta ku haya magaalada Beledweyne, iyagoo oo xidhay inta badan isku socodka wadooyinka, halka duleedka magaalada ay ku sugan yihiin ciidamada kacdoonka oo gadoodsan. dhaqdhaqaaqyadan cusub ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen guud ahaan magaalada, sida ganacsiga, isku socodka dadka iyo gaadiidka oo hakad galay. booqashada Cali Guudlaawe ee Beledweyne ayaa ku soo beegantay xilli haatan Muqdisho uu ku sugan yahay Generaal Xuud oo si weyn uga soo horjeeda maamulka Hirshabeelle, isagoo oo sheegay in hadda la khiyaameeyay dadaalada dib loogu heshiisiinayo. siyaasiyiin uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa cambaareeyay tegista Cali Guudlaawe ee Beledweyne. tegidda Cali Guudlaawe ee magaalada Beledweyne waxay ka dhigan tahay isxaadiris, maadaama uusan tegin sidii loo doortay, ayuu yidhi Cali Cabdulaahi Cosoble. sidoo kale musharax madaxweyne Cabdinuur Sheekh Maxamed ayaa yidhi waxa ka dhacay Beledweyne waxa ay ka soo horjeedaa dowladnimada, balse fila Soomaaliya ayaa qaadaysa dhibka ka dhaca Hiiraan.